ONLF ayaa maanta iskugu imaanaysa kalfadhigii labaad ee golaheeda dhexe ay qabsato iyadoo nabadna la ah dalka. Waase kalfadhi wax badan kaga duwan midkii koowaad iyo ku walbay hore u soo qabsatay. Fadhigani waa u guul siyaasadeed oo taariikhi ah, odayaal ama garab xeedhada gacanta looga saaray sanado ka hor laguna faquuqay oo laga xigsaday sheegashada halganka magaca iyo dhiigaba loo sinaa. Mar kale fadhigani waa u guul siyaasadeed iyo dabdamis xisbiga talada dalka haya ee barwaaqo, gaar ahaanna laanta Soomaalida ee Mustafa hor socdo, maadaama shaxdii ay la dhigayeen ugu dambeyn u dhacday sidii ay jeclaan lahaayeen inay kol un arkaan oo ah inay helaan ONLF oo ah xisbi mucaarad ah oo nabad ku halgamaya, nabadna ku loolamaya, kana go'an tahay wadaniyadu iskana ilaaway boogii galka madooba ee ciwaankiisu ahaa ogaadeenyaha ka xorowda gumaystaha Ethiopia iyo in deegaanka lagu riixo colaadda. Laakiin fadhigani waa u guul darro iyo tacab khasaaray xubno dibad wareeg ah oo muddo iyagu ahaa madaxda talada jawxo ka goodo. Laakiin maanta iyo haddeed aan waxba laga weydiini doonin, waxna loo dirsani doonin sida safxadaha saadaasha ku qoran. Cabdiraxmaan Maadey, gudoomiyihii ONLF, iyo Cadaani Hirmooge afhayeenkii ONLF ayaana fadhigan dabadii waxba laga weydiini doonin arrimaha ONLF, lagana yaabaa in daalacba loo raacdo odayaasha haddiiba iyagu ka hadlaan wax ku saabsan qadiyadaha jawxo sababo aynu tabintan ku sheegi doonna awgood. Kalfadhiga maanta ee ONLF ma imaanayaan, lagamana aqoonsana laba garab oo jawxo ah, waxaase imaanaya ONLF mid ah, wadani ah, ixtiraamaysa oo gol ilaalinaysana dastuurka iyo shuruucda dalka u yaalla, aan u soconin duur iyo qori midna, balse qalinkiiyo nabadgelyada ku badbaadinaya qadiyadda deegaanka iyo dadkiisa. Waxaana ajandayaasha kalfadhigan ONLF hor yaalla ugu muhiimsan doorashada xubnaha golaha dhexe iyo dib u habeyntooda, iyo doorashada gudoomiyaha jawxo iyo gudiyada kala duwan ee muddaxileedka sanadaha soo socda. Sidoo kale dejinta siyaasadaha iyo tabaha ay ONLF kaga qaybgelayso ugana diyaarsan doorashada soo aadan ee dalka ayaa iyaguna ku jira. Xogaha hordhaca ah waxay sheegayaan in gudoomiyaha jawxo ee fadhiga lagu dooranayo uu noqonayo halgamaa Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, oo isagu sanadahanba ka dhawaaqayay hagardaamo maamul oo lagula kacay jawxadii la wada lahaa, ururkii iyo halgankiina cid gaar ah ay qaxwaheeda ka shubanayso. Xubno kooban oo ay ugu muhiimsan yihiin Cabdiraxmaan Mahdi Maadey iyo Cadaani Hirmooge oo labadooduba kala meel dibadaha ka jooga, maalmahana si weyn u qaadqaadayay sadarro colaad horin ah iyo kicin ciidamo commandos ah oo aan la ogeyn meel ay joogaan iyo cidda ay la dagaalamayaan, ayaa fadhigan lagaga tegayaa, haddeedna aanan ku hadli doonin magaca ONLF iyo qadiyadaheeda midna. Mas-uuliyadna ayna ka saarnayn waa sida uu qorshaha ka soo baxaya fadhigan yahay odayaashu wax kale oo ay kala calfadaanba dalka iyo deegaanka, dhanka siyaasadda iyo halgankii ay nusqarniga ku soo milnaayeen inay si fudud uga dhex boodeen ayaa la filayaa. Qorshuhu waa in xisbi siyaasadeedka ONLFta rasmiga ah ee sharciyada ka haysta Ethiopia uu iskugu biyashubanaya nabad iyo siyaasad ku halgan. Shakhsiyaadkase laga yaabo inay dibadaha ka sii hadlaan kuma ay jiri doonaan xayndaabka ONLF, la macaamilkooduna waa qodob u yaalla sharciga amniga dalka.